tartan ciyaareed loogu talagalay bisha barakaysan ee Ramadaan oo ka socday garoonka Laacib ayaa galabta lagu soo gabagabeeyay waxaana ka soo qayb galay ciyaartaasi maanta mas'uuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaridka ee wadani oo hogaaminayo xogayaha dhalinyarada iyo ciyaaraha xisbiga wadani xogayaha xiriirka kubadda cagta Somaliland murashaxiin iyo taageerayaal aad u tiro badan oo daawanayay ciyaartaasi maanta ahayd kama dambaysta meel kasta ciyaar lagu abaabulay meel kasta ciyaar ka jiraan beenan ku qayb galno oo dhiiri gelino aad iyo aad baan u soo dhaweynaa dhalinyaradana waxaan leenahay cidda idin garab qabatay xasuusata maalinta baahantiin iyaguna maalinta codka u baahan yihiin in ogaataan xusuusnaataan oo aad soo dhaweysaan aad iyo aad baan u salaamayaa mas'uuliyiinta xisbiga wadaniga ka soo qayb gashay xogayaha dhalinyarada ciyaaraha xogayaha arrimaha bulshada xogayaha cadaaladda xildhibaanada murashaxiinta maxamed marshaal cabdiqaadir iimaan iyo cabdilqaadir xildhibaanada aad iyo aad baan u salaamay dhalinyarada marka la eegayo dhalinyarada waa halka laga saadaaliyo mustaqbalka ummadii halka uu u jahaysan yahay iyo xagga uu u socdo annagu waxaan u tartamaynaa golaha wakiiladuna waa golo shacabna waxa weeyaan in la helo dhalinyar caafimaad qabta maskax ahaan fayow warwar nololeed iyo warwar mustaqbal aanu ku jirin oo wakiil ay u yihiin dhalinyar marka anu waxaan u taaganahay dhalinyarada astaantaydu waa koobka championka koobka ciyaaraha la kala qaado mahadnaqay ciyaartooyga halkan ciyaarta quruxda badan soo bandhigay ciyaartu waa barmadow iyo barcad waxay muujinaysaa in wax kasta oo lagu tartan iyo doorasho iyo nooc kasta oo dhacaba waxa weeyaan cid uun baabadisa cidina waa laga badiyaa marka waxa muhiim ah in ay kooxdii magacayga ku ciyaaraysa si qurux badan oo ciyaar qurux badan ay soo bandhigeen markii walaaladooda ay ka badiyeen si fiican ay u haneeyeen sidaas waxa weeyaan waa bisayl ay gaadheen dhalinyarteenu ciyaaraha marka waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa tiimkii ku ciyaarayay magacayga waxaan runtii halkan kelmad yar ka odhanayaa kulli waa iska rabadaan tartanada aad iyo aad bay u fara badan yihiin sideedaba dhalinyartu waxay ka mid tahay waa awoodda qarankeena Soomaaliland uu ku taagan yahay xisbiga wadani kastaanu mucaarad nahay haddana wixii awooddeeda tartan walba iyo meel walba ka socdo waa inaanu ka qayb qaadanaa wixii aan awoodnana aan ku tarsanaa wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha waxyaalaha la yaabasa waxa ka mid ah tartanada rabadaanta lagu qabto Hargeysa Stadium Guryasama dhalinta xawaale waxay soo rogeen inay warqad u qaybiyaan dhalinyarta ciyaaraysa yiraahdaan koox walba tartan walba hal la keeno koox lacagteeda hal la keeno sidii ay xaqal ciid ay ka doonayso ciyaaraha ka dhacaya degmooyinka ceeb baan u aragnaa baan anigu aaminsanay xisbiga wadani haddaan nahay waa in dhalinyarta iyaga lagu maalgeliyaa tartanka ay qabtaan tartanka nimka juudi baa galay dhalinyar baa qabatay security baa jooga inay wasaaraddu wax ku darsato khasab bay tahay insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo doorashooyinka soo socdana si fiican baynu ka qayb qaadan doonaa waxaana dhalinyartaan aaminsanahay dhalinyarta sportsku iyada isku qabiila iyada isku hela waa la socotaan inanka Fadx Badhi ku xiran saldhiga mag baa loo haystaa insha Allah magtaana dhalinyartii kubadda cagtu meel fiican bay marinaysaa in ilaa wiigan ay u dhamaato laga yaabo hadii Ilaahay yiraahdo aynu iska warhayno inaga isku hela inaga isku qabiila insha Allah sanad iyo dhowr bilood baa haray xiligan xukuumadan ciyaaraha sanu gashay ay